عبد الله حاجي inkastoo maaragtay xilliga imaanay BBC da dadka maaragtay wali shaqeeyo oo muhiimka ah uu kamid ahaa 2000 kale aniga lafteeda imaaday dadka qaar oday weyn iyo malaa'imo xaajiga dadka meesha ugu imid uu kamid ahaa odayaasheenii na soo dhaweeyay sharafta maaragtay annagoo laga yaabay maaragtay aad u yar inaan dhageysan jirin aniga lafteeda dadkii dhageysan jiray xaajigan kamid ahaa maadaama 2000 meesha aan imaaday laakiin haddana sidoo ii soo dhaweeyay sidii qof maaragtay shaqaale asaga la mid oo kale ma aha in maaragtay daa xaggeeda uu ii fiiriyay khibrad xaggeeda inuu ii fiiriyay laakiin wuxuu ii soo dhaweeyay qof asaga la mid ah oo maaragtay meeshii loo soo shaqaaleeyay shaqaale BBC ah oo isku mid yihiin laakiin talooyinkiisi iyo khibradda aan ka kororsanay dhammaanteen wax maaragtay la dhageysan karo maaha dhinaca bini'aadanimada ha ahaato dhinaca aqoonta saxaafadda ha ahaato xaajiga waxaas laga sheegay oo dhan maalin horena la sheegay oo ahayd inuu dee qof zaciim ahoo qof walba inuu wax siiyo rabo uu yahay oo deeqsi ah horta taas su-aal kama taagna deeqsinimadaas oo ah maaragtay dhinaca feedback aan dhihi jirnaa annaga oo dhinaca maaragtay falcelinta in qofka wax loo sheego dad badan ma ogi inay muhiim tahay oo wax walba ka muhiimsan tahay qof waxaa la yidhi soomaalidu waxay tirahdaan umalayna haddaanan qaldaynin wax ku siiya waa heshaa laakiin wax kuu sheega ma heshid soo macnaheedu maxaa waaye dee talada way yar tahay qofku siinayo talo oo talo wanaagsan weliba ku siinayo xaajiga marka talooyinkiisa aad maaragtay u wanaagsanaayeen aad uu qof walba oo Soomaali ah uu maaragtay u soo dhaweynayay u xushmadaynayay uu maaragtay annagana sharaf weyn inoo ahayd xaajiga oo maaragtay legendigeen odageeni ah in maaragtay aan xilli dambe waxaa jirtay xataa xaajiga oo isagoo weli macnaha waqtiga waa taqaanin Yurubtan waqtiga go'aan oo pensionka lagu galaa jiro qofka isagoo weli shaqayn kara laakiin haddana maaragtay waqtigaas go'aan hadda 67 laga dhigay Soomaa xilliyadaas oo kale xaajiga dib aan ugu yeeranay oo uu noola shaqayn jiray annagoo BBC da sababtana maxay ahayd because of magaciisa sharaftiisa macnaha BBC oo Cabdullaahi Xaaji uu ka hadlaayo ayadoo waqti dambe ay tahay si maaragtay magaciisii aan ugu faanno oo u dhahno Cabdullaahi Xaaji wali nala jooga xumaan ayaan la iga arkin kama wado daada ilaaha cimriga ilaaha u dheereeyo xaajiga laakiin wax faa'iido noo ah oo ku faani karno BBC ahaan waliba xilligii uu Yuusuf joogay aniga markii dambe oo 2 sano camal markii dambe joogay amaanta suurta xaajiga isaga iskale sumcadiisa iyo magaciisa iyo darteedan waxaan u lahayn ilaa nala shaqee oo shaqada sii wad markii iigu dambeysay asoo nala shaqeynayo mar uu yara xanuunsaday ma isira weyna kadibna aniga waataan BBC da ka tagayba marka xaajiga Soomaali haduu jiro waa xaajiga oo Soomaali rasmi ah ka hadla waxaan maaragtay isku dhaxyaaca ah qofba maaragtay oo qofka xiga ama qabiilka la ah ama maaragtay uu yaqaano ama hadda uu heelanayo ama qofka markuu ka tago qofkii kale waxaas qof yaqaana ma waa maaragtay muwaadin Soomaaliyeed oo Soomaalida oo dhan u siman tahay aan ku faani karno dhihi karno waliba aniga shakhsiyan dadka noocaas ah adduunka ugu jeclahay waayo waxaan jeclahay inaan saas oo kale aan ahaado oo inaan qabiil noqon Soomaali noqdo Soomaalinimadana wada deeqda hadda waxaan arkaynaa gobollo markaan u kala baxbaxnay isteediyana loo kala bixiyay ma arkaysa calanka Soomaaliyeed oo la wadwado ama la xusaayo maxaa arkay inta badan hadda Hirshabelle ugu dambeysay oo dooraad loo dabaaldegay meel kasta social media halkaas calana horta la wada qabsanay qof ahaa iyo qof taageersan iyo qof aan taageersanayn galmudug ka sii horeysay saas oo kale
kii Soomaaliya markii la yimaado yes waa la xusaa laakiin caadifada la muujinayo isku mid ma aha kuwaana ka badan caadifada isteediyada ayaa ka badan caadifada maaragtay qaranka loo muujinayo wadaniyada soo marka mawduuca inaan off topic noqdo u maleynaa waa soo dhaweynaynaa xaajiga ilaahay cimrigiisa noo dheereeyo waan ku faraxsanahay caawa xaaji inaan kula joogno aniga ardaydiisii ka mid ahaa BBC-da waayo waxyaabaha horta muhiimka ah waxay ahayd xaajiga saan oo kale anaga shir idaacad walba markii laga baxo saan shir u galeynaa macnaha saan oo kale isku hor fadhiyaa markii la fariisto xaajiga qof uu og yahay inuu dhaliil lahaa meeshas publica kuma dhaliilayo laakiin waxaa laga yaabaa inuu ama gooni hadhow inta ula baxo yiraahdo saas waa laga fiicnaaye inaad saas sameyntaa fiicnayd taasna waa maamul wanaaga qofka maamulka hadduu barto qofka aad dhaliilaysid yes but anaga markasta wax noogu dhex jiray marka aan comments ka bixinayno inaan horta wax naloo tababaray marka hore wanaaga qofka sheegno commentigiisa anaan waxaas ku fiicnayd laakiin meeshaas xoogaa saas ka yeeshay dadkan isku mid baana qofna si kulul wixii kugu soo tuura ninna waa ku aqliyeenayo ayadoo farsamaysan oo qaladkaaga ku sheegay marka xaajiga xataa farsamada waa nagala xishoon jiray ilaa maaragtay gooni uu noogu sheego yiraahdo maaragtay marka waa khibradiisa ana keenaysa taas iyo wanaagiisa hadalka hadda idinku dheereeyna iga raali ahaada aad iyo aad u mahadsantihiin Abdullahi Xaaji noo jiro noo joog insha Allah inta ilaahay marka imri dheer ilaahay ku siiyo markastana legendigeena tahay badan halkan aan caawa wada joogno aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaa sharaf weyn ii ah anigoo marka hore ku bilaabaya hadalkayga bismillaahi raxmaani raxiim inaan caawa halkan aan isugu nimaadno yacni dhallinyarada saxaafadda iyo idaacadaha soo maray welina ku jira qaarkood waan aqaanaa magacyadooda waan soo wada shaqaynay anigu haddii aan iskaga kii warrabo horta waxaan ka bilaabay shaqada reediyoha wada hadalka magaalada Addis Ababa 1958 يعني markaas marka BBC-da imid يعني wax fikrad fiican baa ka haystay maaragtay su'aalaha sida loo weydiiyo iyo sida loo frame gareeyo marka sidii 72kii ayaa waxaa la yiri waxaa la dirayaa qof markaana tawrad baa jirtay yara gacan kulul oo laakiin dhiig aanu ku daadan markii xukunka ay la wareegayeen marka waxaa la yiri yaa tagaya marka Mustafa Xajuuriye way joogaan oo idaacadii joogaan waxaa kaloo joogay Cusmaan Xasan waxaa joogay Cusmaan Sugulle raggaasaa joogay oo dee veterans ahaa oo yani maarag muddo badan ka shaqaynayay meesha oo codkooda aad u wanaagsan yahay way diideen kulligood inay tagaan markaasaa la yidhi xaaji adigu dee waad cusub tahay oo dee 2 sanadood quraad meesha joogtay laakiin you think you can go there to Mogadishu and try to interview the president madaxweynuhu Siyaad Barre waxa uu sameeyay nin caan ah oo wariye ah oo meesha tagay John Snow weeye ayaa muxuu ahaayay u tagay oo markaasuu dictatorship iyo waxaasuu sheegay dictator baa tahay baa la yidhaahaa caynkaasi maxaa ahaye waa maxay intuu kursigii ka kacay oo laaday buu get out ayuu yidhi saasuu u eriyey marka BBC-du waxay ka qabtay yani madax wareer bay ka qabtay xanuun bay ka qabtay marka Siyaad Barre la soo qaado waayo wariye caana buu ahaa ninkaas John Snow markii la soo eriyey ayay BBC-du they were very cautious aad iyo aad bay u taxadarayeen waxay samaynayaanna waxay oran jireen u kaadi
let us think. Yeah, this dictator is horrible. marka anigaa la yidhi kan aan ku gufayno too young yeah, too innocent su-aalo ma waaweyn ma weydiinayo marka b b c da ma oga inaan soo maray cycleka cankaasa oo yacni maaragtay odayaasha ethiopia ee soomaalida ah oo dhan inta magaca leh inaan waraystay ma oga marka ma tagaysaa baa la yidhi war nimanka haddii ninka Jon Snow hadday soo eriyeen anigu maxaa muxuu ahay anigoo weliba dee Ethiopia ka imid okay yes waan tegayaa baa whatever happens marka lacag badan baa la siiyey yani barnaamijyada aad ku soo qabanayso $4,000 £3,000 ayaa dadka la siin jiray يعني وإن ملفي عندك تا ونلفي عندك تا dadka aad ureysanayso waa inaad lacag siisaa haddii kale fawad baa la buuxinaya marka anigoo xaran ayaan tegey markaasaan muxuu ahay waxaan ku degaa anigu ku degi jiray taleex rugta taleex juubo iyo curubo iyo waxaas ma doonin inaan meeshaas fiicane qol aad qaadanayso fiilada dhan baad qaadanayso halkaasaan ku degi jiray had iyo jeer markaasaan muxuu ahaayey waxaan la hadlay cabdimadoobe miyuu ahaa cabdimadoobe oo ahaa muxuu ahaayey ad camp buu ahaa markaas diro walba uu ahaa ninkaasaan muxuu ahaay aan u tegay aan iriba waxaan doonayaa hebel hebel baan ahay in aan muxuu ahaayey madaxweynaha wareysto markaasu way waa soo weydiinaya هيا حاجات كتبت بي بي سي دي ها أذكاريسا وأذكار بي بي very difficult لكن والله شيء يعني وتجي وشيء مركز هاي سوق بوير هاي سوق مركز ما ويك با ما لو ويك با بالبا you don't know أنا لكن وحنا هسا أفرت الضمان afar ka toddobaad hadda ku waayo iyo haddii aan helaba waa inaan ka soo baxa markaasaan iska fadhiistay quraan baan iska akhristo ilaahow arrintan ii hagaagsiiyo ii sahlo ya waan iska waxay ducaystay oo markaasaa yidhi su-aalahana waxaan haystay 22 su-aalood baan haystay anaana qortay mid qura kala matan wallahi inaan kala saasan wuxuu ahay George Bennett iyo Israel Wamala iyo nimankii madaxda ahaa iyo Aabi iyo markaa ma joogin Hugh Walker iyo C. Martin baa joogay su-aalahaygii ayaa maxaa intaa garaystay jeebada ku haysta markaasaa uu yidhi oo maxaad ka wareysan lahayd haddii aan helaba madaxweynaha markaasaa yidhi waxaan ka wareysan lahayn maaragtay sida ay howlahan u qabteen iyo howlo adag baa iska jireeya adigu 5 su-aalood oo jahawareerisa ya ayaan muxuu ahaayey aan u sheegay intaasina doonay intiibuu u sheegay masaasa good yahay ken berito ken fiidkii 8 fiidkii kaalay baa la yidhi madaxtooyadu waxay ahayd meesha la yidhaaho xalale ya afisione ayay ahayd meeshii baan tegey markii meesha aan galay waxaan filayay inuu qol ku jiro laakiin geedkii harka weynaa ayuu hoos fadhiisan jiray muddo badan intii halkaa joogay oo dhan geedkaas hoos fadhiisan jiray dadkuna halkaasay fadhiisan jireen generaal corneyl maxay wax kasta halkaasay fadhiisan jireen markaasay sidaa u fadhiisan jireen markaasaa shaah loo keeni jiray markaas anigu markii 8 la yidhi waad arkaysaa waan isa sii dhiso waan is hagaajiyey
oo markaas allah ilaahay uu iga aqbalay muxuu ahay ducadeydii su'aalihiina waan haystaa marka su'aalaha idin soo saaray sidoo halkaa ma dhiganaysid moogta waan xafiday inta badan 10 su'aalood ugu horeeya oo aan xafiday ayaan meesha la tegey markii aan la tegey halkaas oon xafiday 8 baan tegey 9 ayaa la gaaray markaasna magaalada muqdisho waa hurdo macaan tahay moogta hurdadii baa i qabatay saasoo baa waa saacad huraan fadhiyey markaasaa korneel aadan goorba madaxweynuhu arkaya lama oga buu yiri taal lama oga loo borinos inuu ku qabili karaya 3 saacadood kadib ku qabili 3 saacadood oo laasis tu baas 3 saacadood baan soo sheedi karaya hadda muqdisho waad aragteen way hurdo bacaantay hurdana waxay ku qabanaysaa 2 ku qabanaysaa 3 ku qabanaysaa 4 ku qabanaysaa yaa ma garanaysaa marka saan u joogay 4 baa la gaaray 5 baa la gaaray 6 12 habeen baa la gaaray I was gone خلاص وأنا وان جمعيبا مركز أنتي كل شو إستاهو هذا أيو إسرائيل قال حاجة حسي حد والله يا ما إنه كويه وإلا بلايا فرب الله إلا وحو عادة أوليه هاي مدحوينه يعني تذكيو دالن أيو قابلة مع جرارة مع كل ليلة isagiina sigaarkii isku daba qabanaya intaasoo koob kofiya ayuu cabaya yani kama qasraba yani magaraysaa waa soo ready diyaar buu u yahay maaragtay waana fresh looking markaasuu indho waaweyn buu leeyaho aniga indho waaweyn buu ila noqdeen markii dambe waxaa la yidhi indho waaweyn ma laha madaxweynuhu marka sidaasuu markuu kuu eego waxaad moodaysaa inaad dhalaalayso moodaysaa adigoo hurdo luloonaya oo uu madaxweynihii aad hor fadhido waxaaba dhici karaysaa magaciisa inaad ilowdo adigiioo daalan isagiioo muxuu ahayey kacaanah oo yani jarnaal oo yani markaana dee dharkuu xiran jiray jarnaalnimada ayuu xiran jiray markaasoo la ii yeeray 12 soo qaado teebka teebkii baan soo qaaday hortiisaan waa fadhiid haye marka erey jaallaa jirayo warkaa cusub haye jaalle maxaad i weydiinaysaa haye ka waran maxaad kula kulantay magaalada ku aragtay waxba ma arag bade ma arag wax la dhisayna basaanada ma arag horey uma arag magaalada daba waxaad oran karaysaa waxba ma araga oo yaasa alla ilaah halkaas wado fiican baa laga dhisay halkaana iskuul fiican baa laga dhisay yes weliba taasaanu kasii kordhinaynaa buu yidhi haye su-aalaha haye maxaad i weydiinaysaa marka hore marka maxamed ziyaad af soomaaliyana aad buu u yiqiinay waana waayo arag buu ahaa يعني كما بقصير المرة سؤالها هدو دوليان اقتريا وحبك هو جوابيو هدو دوليان وهو جوابيا لكن عبسي وحلا إلها كومتين مركز اوكي مدحوين محمد زياد جنرال محمد زياد مايا مدحوين محمد زياد بره وحن دوليا مركز ورسنا كويتيو وسؤال شيء كواد اي تاي dadka Soomaalidu sidaad og tahay way baran xukun milatari idukuna xukunkii baad qabsatay goor baad xukunka ku wareejinaysaan dowlad rayida oo idukuna aad xirihiinii ku noqonaysaan indhihiisi aan moodayay inay yaryihiin
waa weynaadeen markaasuu sidaa ii eegay saasuu ii eegay marka nin su-aalaha ka baqana ma ahayn markaasuu wuxuu yidhi jacle waxaan kuu sheegayaa marka hore wuu ka carooday su-aasha waan ogahay inuu ka carooday aad iyo aad laakiin kama jawaabayo iyo waxaa muu oranina wuxuu yidhi jacle waxaan kuu sheegayaa ninku amba kaaki ha xidhnaado amba shaal ha xidhnaado wax kastaba ha xidhnaado waxaanu doonaynaa nin wax qabanaya qof wax qabanayaanu doonaynaa oo dalkiisa iyo dantiisa iyo wanaagga ummadda ka shaqaynaya corruption iyo waxaasla ma jirto waa waxaanu la dagaalamayno adigu dee su-aal way dheerayn wax badan buu hadlayay ee intaas nuxurkii aan ka soo qaaday intaasay ahayd marka waraysigii baa soo qaaday waxaa ka baqay in muxuu ahaaye la ii yeero oo la yidhaaho muxuu ahaaye su-aalahaas inta taa ka goo taa ka goo taa ka goo su-aashaydina ugu horeysaana taasay ahayd taa haddii laga gooyana waa dhimasho weeye marka waan qaaday waraysigii waan xirxiray waan hagaajiyey marka teebkii aan ku duubay iyo casladii oo kuwo waaweyn ahaa agtaydaan dhigayo waa intaasoo inta maxuu ahay la ii soo dhaco layga qaato layga xado niman kale waxba laguma hadlayn karayo muxuu ahay layskuma hadlayn karayo meeshii baan qabtay waan qaaday aroortii baan booking samaystay inaan dhoofo umana sheegin markaa aadan madoobe iyo cidnaba uma sheegin markaasaan waan soo duulay waxaa soo maray rome halkaasaan ka london aan ka tegey b b c baan u geeyey ninkii madaxda u ahaa african service john wilkinson ayaan u sheegay marka waxaa meesha jooga oo haysta sectionka nin la oran jiray hugh walker oo ingiriisa oo yacni soomaalidana aada u yaqiinay oo joogi jiray kenya oo askari ahaa sarkaal buu ahaa jiray markaasaa waraysigii baan la qaaday waa la dhegeystay soomaalidu baa dhegeysatay markii la dhegeystay ayaan anigu la wareegay waan googooyey yani flafskiga ayaan ka googooyey wax kale kama goynin flaps madaxdii baa yaabay su-aalahaasaan weydiisay really how waa su-aalahaasaan weydiiyey can't you see it miyaadan arkaynin waa la yaabay john wilkinson wuxuu yidhi really this is very very special waxaa lagu sii daayey 42 af baa ka bixi jiray b b c da waktigaas 42 waxaa lagu sii daayey 12 af baa lagu sii daayey oo carab uu ka mid yahay chinese uu ka mid yahay ruush uu ka mid yahay iyo sectionada kale serbocratic afafkii la oran jiray ayaa lagu sii daayey soomaaligiina waa lagu sii daayey markaasaa waxaa ii yeelay john wilkinson baa yidhi okay kaalay haji you did very well this is really very impressive very impressive waa wax loo qosooco kuleeyahay waraysigan laakiin waxaan ku siinaynaa reward baan ku siinaynaa abaalgud marka waxaan idiin sheegayaa haddii aad journalist baa tihiin wariyayaal baa tihiin in aad muxuu ahaayey waktigii laydinku talagalay dheeraad aad shaqaysaan dheeraad haddaad shaqaysaan waad guul baad gaaraysaan runtii oo yacni maaragtay shaki kuma jiro taas laakiin haddaad saacadda eegato 8 saacadood markay tahay albaabka aad ka baxdo shaqadaaduna saasay isu dhimaysaa marka aad iyo aad baan idinku mahadinaya dadkii halkan ka hadlay kulligood yacni maaragtay aad baan u dareemay yacni maaragtay hadallada macaan ee fiican ee geesigelinta ah yacni maaragtay waxay taasi markaas ay ii muujinaysaa in
aan shaqadii halkii ka sii wado si kastaba oo ay ahaataba cidaan u shaqeeyaba magalaysa intaan noolahay marka ilaahay caafimaad haydi siiyo ilaahay muxuu ahaayeen cimrigiina ha dheereeyo if iyo aakhiraba ilaahay haydin gargaaro wax allaaliyo wixii aad jeclaataanna ilaahay haydin siiyo dhammaantiinba aamiin Thank you.